أنا كم تشعلي كم نتشيدي إيجا تشوتش قارقة برع وجه تاي كتشيدي لامي قمصنا كنا عشرين ما داني دبتش بحسن أنا قلت شعلي وشي سكبت شيرين وراقة أنا تشرنا تشعنا بلعنا ما دان كتشبني أسمع دول اللاعي وحديلا دكان تأسيدي دم يلو دفع عرتي شيلا لمبعات كليلات يدا الرداي ديلا يقوم ودنا حيود عش عايلون حيلا فايل بولا تحدثو اسمه قسم استاذنا يقدرون كوا كوا دادير دمربع الله حدا مركا دقاقان كلا حدا من ده دوكنا يسوقيلا يدمان مركويد لا ديكور كعين تقول ولا ديكو أنا اللي دحتاجه أنا اللي بدحتاجه من أنكار درسه اسمه كمالي أنا يقدرون حدانا على دينا ده على فكرة يمرون بنا بتدين حاجة تسوقي إذا قبل دمبلا السودي براقات نسودينا يودو شعرقي kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin badawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo idin ka soo tabin doono TV-ga caalamiga badda cas 24 xarunta uu ku leeyahay magaalada Burco taawadayaal barnaamijka waxay idin la socodsiin doontaa anigoo ah Asmaqani Axmed Ismaaciil taawadayaal talo barnaamijku muxuu noqon doonaa barnaamijkani uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore maanta studio-ga badda cas 24 waxaan idin ku soo casuunay wiil aad u da'yar oo la magaciisa Suhayb Jaamac Cabdi isla markaana ah wiil Ilaahay hiba gaar siiyay bal Suhayb yaan idin kala baxo hibada Ilaahay siiyay Suhayb ku soo dhaw aan ku dhawaa Suhayb yare intaan u gelin gabayada tirisay bal marka hore taariikh nololeedkaaga kooban taariikh nololeedkaygu magacaygu waa Suhayb Jaamac Cabdi waxaan la noolahay hooyaday iyo aabahay iyo walaaladay waxaan ku noolahay magaalada Burco gaar ahaan xaafadda Caqibo waxaan dhigtaa dugsiga hoose dhexe Ismaan Cabdi Cali Siide galaasketa galaaska afraad tawadal sida wada dheehanaysa amba Suhayb Jaamac Cabdi waa wiil aad u da'yar isla markaana aanay islahayn abwaanimo hibada ku jirta iyo sidoo kale sidoo uu tirinayo gabayada aan idin kala baxo gabayadiisa Suhayb Jaamac gabaygaaga ugu horeeya baxsan baa la dhahaa baxsan baa la dhahaa waxaan tiriyay iskuulka aan dhigto iskuulka magaciisa Siide Ismaan Cabdi Cali iskuulkaas aad u tirisaa bal waayahay sidaad gabaygan u tirisay wuxuu ku bilaabanayaa ardayay bogaad Soomaaliyeed bariitii salaam bilan gudoomo baxsan oo bureediyo biladii astaaniya looga dhigay banaaniyo marka xigta bushaariyo dugsigeena baadiye cilmigu bogaajo looga dhigay bartiisuga horta barashadeenu waa aqoon buuxda weeye aqalkii baraali Ismaan Cabdi Cali ka bayra dugsi baad weyn oo boqolaal barbaariyo bulsho guul ku gaadho baradii wacnaydi mantalkii tagdheeriyo burca baadilkeediyo bartama ku yaalo baradii samaataba loo boqolo weeyaan jaaligu burburiyo aqoontu burburiyo barmado ka reeba hadal buuq ma daayo badooraadii beedkaygan dhuuxo bartaad ku socotiyo himilada ogaagii biltada garaadkii barayaal aqoon loo alla baawar saaro cilmi lagu bineeyo beerjilaac dulqaadiyo naxariis barqanaysa beeliyo kalgacaaliyo naftahay basaasto xigmadiyo baxnaaniyo murtibada عزيزو واحد كذا بقتها كابا سارة عبد الله يبوق إمام البحويان مركب بقولنا محمد بابتي سيبو سكيس بحشي فرشاد حسابتنا عبد الله كبر يكو كربلا يسوع كانت بلعت له كي سبب بلالي مرتكو برحيسه دينتنا بلعت له لقوا برواقة برا كنا ذي بقولنا روحوا كله وعكبر يبيتاي فتدكو كربلايا بري سماية بغر أحمد كيني علم بالشدة قرنية بلابين باللي باقي كليا كجبوا عبد الرزاق ساينس كي برورتي عذر الله وحبيك صدا لقوا كلا بدانشي كجبوا محمد داق waayahay intaan kaga nimaadno baxsan oo tirsay iskuulkaaga aad dhigato adigu intaan inta labaad galin markii abwaanadu curinayaan gabayada waxay tiriyaan xilliyo ama habeen ama meel cilaabay ku tiriyaan adigu Suhayb marka tirinayso gabayada si meel nooceed ku tirsaa anigu habeen
meelna kuma tiriyo meel cidlana kuma tiriye goor allaala goortii daan waqti haystaan tiriya ayay ku tirisaa aad ayuu u mahadsan yahay Suhayb oo aad wiil aad u da'yar isla markaana aanay islahayn hibada Suhayb ka qabanaysa iyo sidoo kale da'diisu aynu talabaad u gudubno waa Asma gabaygan nin Asma la yiraahdo tirisay gabaygan saad u tirisay saysu kugu dhashay gabaygan wuxuu tiri inaan saaxiib aan ahayn ayaa igu yiri inaan Asma la dhoo ay wala isku dheeraayeen igu yiri igu samee dadna wuxuu ku bilaabmanayaa Asma dhool ilaaciyo waxaad ila dhigantahay sidii dheeman iyo luudhiba horti jiilaa dhambacaad kaliileed iyadoo raadacay dhayala iga moodina waxa ugu dhacay jacayl oo dhaxaya la faayal bowlaha dhexdiisu dhismayga samaystaan iga dhaaween kuwa kaba dhaadheer dhamalba loo xidhay markay dhaqaaqan ka ilaa dhamanada dhuukanaya suuqyada iyo dhamaantii markooyda la digo raarka caynta gowlada dhigo ana la dhex taago adna lagu dhex taago midaan kaaga doorsado ismay kameeliyana iga dhaaween haddaan calay dhigan haddii calafku dhigay muruma nafta din xaag joogiyo iga qaba dhambalada soo dhibara qaadna soo dhinay u dhigo jacaylkii aad ayay u mahadsan yahay waxaan oran karaa Asmi waa inan ila magaca waxaan u tiriyay saaxiibkii oo inantaasi uu yiri waan jeclaa wali waxaynu bartanka kaga jirnaa gabayada Suhayb yare oo ah wiil aad u da'yar isla markaana tirinayo gabayo aad u macaan oo xigmad ku dheehan tahay gabayga saddexaad aynu gudubno gabayga saddexaad wax la yiraahdo iga jooji gaariga gabaygan yaad u tirisay si kugu dhashay gabaygan isaguna waa sidii kii hore kale oo mid aan isku galaasaan oo ila fadhiista ayaa igu yiri iyaduna mid yar oo iga dawaar igu samee marka gabaygan waa xalnay gabay maagitaanada haye soo bilowmay anigu kuma jecli kuma jeedi iga jooji gaariga burca way jirtay ku jeediyay laamiga muslimkana jeersin maadaani daba jabsan aniga jacayl iyo hawshiisa kuwa jirin waraaqa aanu jarjarnay jecjecnay balaana maadaan ku jeebnay taayir ee gaaban buu gabaygaasi aynu inta kaga nimaadno wali daawadayaal waxaynu bartanka kaga jirnaa gabayada Suhayb yare oo iyagu aynu oran karno gabayo aad u qurux badan ayuu daadihinaya gabayga aynu afraad aynu daawadayaal u soo noqono gabayga afraad lool baran baa la yiraahdaa gabayga afraad gabaygan isla sidaaba kuugu curtay mise cid baad u sameeyay isagana cid baan u sameeyay haye oo sameeyay gabaygan isagana miyiro ayay biyadii wasan adiga aad bay saaxiibadaadu baday marka mar walba saaxiibada baa ku yimaada maadaama ay ogyiin inaad wax curiso marka waxay ku dhahaan noo samee marka gabaygan saaxiibka baad u sameeyay haye wuxuu ku bilaabmanaya ninba tii ku dheer baa dumar ku dhalaal badan ay dhaawacay dhool baro ilaaciyo dhabankii bureeqiyo nabigiisu tuu dhalay quruxoodu dhigantaa anoo kula dhaqaaqo kula dhoofo mooye miyaa layba dhigaya hurdadaba dhammaanteed dhaloolo ma siiyaadan kuga miye ayuu ku bilaabmaya intaas ayuu ku dhamaaday gabaygaasina daawadayaal wali waxaynu gabagabadii ayaynu ku jirnaa barnaamijka waxaanaynu oran karnaa waa gunti iyo gabagabadii kii ugu dambeeyay ayaynu ka maraynaa ka taariikhda ka tiris haye ka taariikhda ayaan ka tiriyay dhulka la dhigayaa baad tiraahdaa dhulkaaga loo hodmaa taariikhda ka tiris isaga bal waa gabaygu ugu dambeeyay Suhayb jaamac yare isagana aynu eegno Suhayb jaamac abdi aan dhahe bal Suhayb gabayga maqashiyo isagana umada taariikhda uga tirisay bulshada dhamaanteed socotee dhaqaaqday moodid dhoofka raaxada aan idiin dhawaaqi hadalkayga dhuuxo dhab waxaan u leeyahay bal ha dhaafina dhugo dhulkeena barwaaqiyo dheeman laga helaayo wada dahab dhalaale cid dhugataan la garanay dhulkeena dalxiiskiyo goobaha la dheegtee dadku dhowrto badankii allow wuu ka dhoobe cid dhugataan la garanay dhulkeena adduunyada dheeg kastoo la eegaba nabad aan la dhaawicin rabbi inagu dhowre aan ku wada dhaqaaqne dhigataan la garanay daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena aadka u xiisaha badnaa ee aan ku wareysanaynay Suhayb jaamac abdi oo ah wiil alla hiba siiyay isla markaana ku nool gobolka Togdheer daawadayntii barnaamij lamid ah ku kulmi doono anaga iyo badda cas 24 waxaan idinkaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo